shirkadda waa bari group oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya deegaanada Soomaalida ayaa maanta munaasabad siyaasadeed loo soo agaasimay ku qabatay hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid ay abaalmarino kala duwan oo aad u qaali ay ku guddoonsiinaysay macaamiisheeda. abaalmarinahan ay ka mid ahaayeen baabuur, qasaarado, TV, talaagado iyo sidoo kale agab kale ayaa ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay maamulaha guud Maxamed Axmed Xasan. maareeyaha guud ee shirkadaasi ayaa isagu si qoto dheer ugu nuuxnuuxsaday abaalmarinahan iyo sidoo kale qorshaha ay shirkadoodu ku doonayso inay ku dardargeliso hawlaha shaqo ee shirkadaasi. waxaanu yiri kolley ninna meel aan dadka qabin waxay lama soo xidhiidho laakiin se waxaynu u wada xidhiidhno waxa weeye isku danba inaga dhaxaysa diyaarna waxaan u nahay inay wax wada qabno. Soomaalida waxa jira wax wada qab waa aad marka sidaa darteed waa bari group waxay abaalmarin siinaysaa oo ay wax ku celinaysaa dadkii ma wada gaari karto daruurta Allahban dadka wada gaari laakiin se waxaan wax u celinaynaa lixdankii ugu horeeyay ee macaamiisha ugu filsana ayaanu wax u celinaynaa wixii inkastoo yar tahay qadar haddana waa soo magacaabida iyo magac dhowda iyo in aan la tegin waxa weeye wax xigmad baa ku jirta. marka waxaan wax ku celinaa lixdankii ugu horeeyay oo u kala qaybsan in lixdan jaansado kala jaadjaada waa Burciya, Hargeysa iyo Berberinta u dhaxaysa. waxa iyaguna intii munaasabadani socotay halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah saraakiisha kale ee shirkadaasi. waxa uu isugu nimid abaalmarin customerka loogu talagalay oo kala jaadjaada mid walba tiyaal ku hagaajiyo isaguna inuu ku calool fayoobaado ku qanco ayaa fiican laakiin ala dariiqati maamuus ayay ka dhigan tahay ninka marka uu shaqeeyo haddaad xusuusato ka tagaalmaysid. كانت هنا منذ زمن قديم وستستمر بالتواجد إن شاء الله عن طريق تعاونكم معنا. في الفترة القادمة ستروني كثيرا في السوق. أنا جديد مع فوستر كلارك شهرين فقط ولكن عندي خبرة كبيرة من قبل في شركات أخرى. أشكركم ثانية على حسن استضافتكم. عبد السمد علي أحمد، تلفزيون كبدعس، هرقيسة.